الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع daawadayaasheena meel kastoo aad joogtaan assalaamu calaykum ramadaanul kariim waxaad ku soo dhawaataan qiso oo aan aad ula dhacay wax badan iga fahansiisay nolosha iyo muhiimadda ay leedahay waan rajaynayaa in idinkuna aad ka faa'iidi doontaan waxaa jiray boqor kaasoo qabay 4 xaas maalin maalmaha ka mid ayuu xanuunsaday wuxuuna saarnaa sariirtii uu ku dhiman lahaa isagoo ka baqaya in nolosha xigta uu cidlo ku dareemo ayuu wuxuu su'aalay xaaskiisa afraad oo xaasaska ugu jeclaa taasoo u gadi jiray dahab luul iyo dhar qurux badan wuxuu weydiistay inuu u raacdo nolosha xigta yacni in ay la dhimato waxay ugu jawaabtay bahdii afraad waan ka xumahay taasi ma samayn karo wayna ka sii socotay sidoo kale boqorka wuxuu aad u jeclaa xaaskiisii saddexaad wuuna ku faani jiray wuxuuna ugu faani jiray boqorada kale iyadana wuxuu ka dalbaday inay u raacdo nolosha xigta xaaskiisa saddexaad waxay ugu jawaabtay nolosheeda aad ayaan u jeclahay waan ka xumahay markaad dhimatana nin kale ay guursan doono bahdii labaad waxay ahayd mid mar walba garabkiisa joogta wax walba u samaysaa wuxuuna ka codsaday inay u raacdo nolosha xigta waxay ugu jawaabtay waan ka xumahay markaan kuma caawin karo laakiin waxaan kuu samayn karaa inaan ka soo qayb qaato tacsiyadaada kuna soo duceeyo kadib cod ayaa soo hadlay oo leh waan kuu raaci doonaa meel kastoo aad rabto xitaa haddii ay tahay aakhiro boqorkii ayaa soo jeestay waxayna ahayd xaaskiisii koowaad laakiin bahdan waa bahdii uu inkiri jiray markii uu soo xasuustay aad ayuu ugu xumaaday kadib ayuu dhahay wax walbo in adigaan kuu sameeyo ayay ahayd haddaba qisadan ma aqaano in la soo alifay in kale laakiin ninka qoray wuxuu ahaa mid aan muslim ahayn soo waxaa ka qaadan karti ka qaado wax kale kuma raaceeno waayo waxaan nahay muslimiin sidaan ayuu leeyahay qorayga qisadan waxayna baraysaa inaan leenahay 4 xaas xitaa haddii aad tahay dumar xaaskeena afraad waa jirkeena waxaan jecelnahay inaan ku qorxino dahab dhar qurux badan iyo waxyaabo kale laakiin markaan dhimano nooma raacayso nolosha xigta bahda saddexaad waxay u taagan tahay maalkeena waqti badan ayaan ku bixinaa si aan hanti u yeelano ugu dambeyntii hantideena noo maraacayso nolosha xigta dad kale ayaa dhaxli doono waa sida ay ku dhahday bahda saddexaad boqorka nin kale ay guursan doono markii aad dhimato xaaska labaad waxay u taagan tahay famligeena waan aaminsanahay ayaga markastana wayna garab qabtaan meesha ugu dheer ay inoo raaci karaan ayaa ah tacsiyadeena xaaskeena koowaad waxay u taagan tahay nafteena iyo camalkeena badanaan waan dayacnaa nafteena oo acmaasha wanaagsan kuma dariqino ayada ayaa ah tan noo raacayso nolosha xigta daryeel jirkaaga ku dadaa caafimaadkaaga ku shukri haddii uu alla maalku siiyey waqti qurux badan la qaado famligaaga laakiin ha ilaawin in naftaada ku tarbiyayso acmaasha wanaagsan intaadan dhiman waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo bir sidoo kale la wadaag asxaabtaada si aan u helno asxaab sida adigoo kale fikirkaaga qaybta hoose faalada nagu soo gudbi ramadaanul kariim